wiil arday ah oo curyaan ku ahaa magaalada Garowe muddo dhowr sano ah ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday in ay caawiyaan wariyahayaga Maxamuud Cabdinaasir Maxamed waa kan mar kale. Maxamed Yaasiin Ismaaciil waa 35 jir ku nool magaalada Garowe waa naafo markiisii hore ay u dhameystirnayd afartaadin hase haatee ay ku dhacday qadartii Alle waxa uu ku dhaawacmay shil gaari xilli uu u socday shaqo maalmeed uu qaban jiray. Maxamed waxa uu ahaa arday dugsigiisa sare ku dhameystay 2006 magaalada Garowe waxyaabo badan oo uu ku hanweynaa ayay ka reebtay curyaannimadu. isaga ayaa noo sharaxaya qayb kamid ah noloshiisii hore iyo dhibaatada haatan haysa. walaal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. magacaygu waa Maxamed Yaasiin Ismaaciil. waxbarashadeeda waxaan ka gaaray dugsi sare shaqo ayaan bilaabay oo ah shirkad. kadib waxa ay soo gaaray dhaawacaan oo shil baabuur ah. markaas kadib waxaa lii qaaday dhakhtar oo ku yaala Gaalkacyo. dabadeedna waxaa lagu sameeyay in lay kabo oo lafa biraa lagu xiray. kadibna markii aan waayay wax kharasha ama ay sheeg taakula ah markii aan waayay dhakhtarkiina si iga leexleexday aan wax waayaan isla waayay. dhakhtarkii birtii ayaa dib igu jabtay oo marka waxa igu dhacay nabar weyn baa igu dhacay. waxaan go'aansaday inaan iraahdo oo birta iga saar. dabadeedna wuxuu yiri laftaadu waxay u baahan tahay in dib loo kabo oo kabitaan kale u baahan tahay iyo kharash kale. hadda adigu haysan daana waxba kuma samayn karno. marka waxaan ku yiri waxa ay sameeysaa wax taakula oo lugta ii taakuleeyo. dabadeedna wuxuu sameeyay caagaan oo muddo aan ku jiray oo ilaa 6 sano hadeer waa 6 sano ay dhan tahay. hase ahaatee waa qadar Alle oo si aan ku haweenaa waxaan islahaa wax weyn qabso. hase ahaatee qadartii Alle igu dhacday. Asli Aadan Jaamac waa ina abtidii uu ku nool yahay hooy ay iyadu leedahay. waxay iyaduna u sheegtay Jubaland TV in dhowr mar la isku dayay in la dabiibo hase ahaatee loo waayay dhaqaale. 6 sano ayuu amarka iyo nabarka qabay dhaawaca qabay. waxaan tinana ma aanan ma uusan helin oo dadkay waa iska danyara. marka waxa aanu hadda u soo aanu damacnay waanu soo dadka caalamka islaamka ilaa inaan u bandhigno ayayna la noqotay. Maxamed waxa uu ku nool yahay gurigan isagu hadda nolosha waa uu ka rajo dhigay sida uu ii muujiyay. ma karo inuu wax qabsado saxarada iyo kaadida meeshiisa ayaa looga qaadaa. waxa uu fariin u diray dadka Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada. waxaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto daliya dibad waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan. waxaan ahay wiilka dhalinyarada ah oo dhibaataysan. waxaan u baahanahay taakulo iyo caawinaad in la soo caawiyo meel kasta ay joogtaan Soomaali meel kasta daliya dibadba. marka waxa igu dhacay jug weyn baa igu dhacday. waxay naga soo gaadhay lugtaas bidix waxaanay maqan xoog iyo dhan baa maqan. lafa halka ka maqan halkana ilaa intaasay kala maqan tahay. marka waxa u baahan halkaana wuxuu dhakhtarku wuxuu yiri waxa hilibka burbur sameeyay laftuna waa jaban tahay. waxa u baahan tahay laftaas in la geeyo dibadda la geeyo oo lagu sameeyo qalitaan dambe lafa dib loogu shubo. Maxamuud Cabdinaasir Maxamed, Jubaland TV, Garowe.